مدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan warbixii dalka iyo dibadda laga soo gaaray caawa. Waxa caawa si wada jir warka idinku akhrinaya anigoo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Muna Jariir. Qodobada warka caawa waxaa gorona waxa kamid ah fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan waxa uu magacaabay wasaaradda tamarta mas'uuliyiin kala duwan. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen. kuwaas waxay hayeen qodobadii warka caawa ugu door corona. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gele ayaa saaka gudoomiyay fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadka. fadhigan oo ah kii 10aad ee sanadkan amuuraha iyo go'aanada ka soo baxay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah naafayeenka xukuumadda mudane Maxamed Cali Yuusuf. Khadar Cabdilaahi ayaa ka waramaya. wasaaradda beeraha biyaha kalluumaysiga taranka xoolaha iyo kheyraadka badda ayaa saaka fadhiga golaha wasiirada hor keentay mashruuc xeer oo ku saabsan xisaab xidhka hantida maaliyadeed ee hay'adda dalka u qaabilsan biyaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ONEAT ay ku shaqaysay sanadadii 2011 iyo 2012 hay'adda dalka u qaabilsan biyaha ee ONEAT sanadkii 2011 wax soo saarkeedu waxa uu dhanaa maaliyad dhan 3.9 milyaar oo faranka Djibouti ah. sanadkaasi hay'addu waxay ku tallaabsatay horumarinta wax soo saarkeeda gaar ahaan qodidda ceelal cusub oo biyo ah, hoos u dhigidda biyaha khasaare iyo isbeddel lagu sameeyay dhuumaha biyaha qaada iyo kuwa kale oo dayactir lagu sameeyay. sanadkii 2012 ayaa isaguna wax soo saarka hay'adda dalka u qaabilsan biyaha ee ONEAT uu dhanaa 3.4 milyaar oo faranka Djibouti ah. waxaana sanadkaasi hay'addu maalgelisay gacan ku haynta si hubaal ah biyaha ceelasha laga soo qaado iyo weliba hay'adda oo xilligaasi soo iibsatay qalab fara badan oo u suurageliyay gudashada hawsha loo igmaday. hay'adda dalka u qaabilsan biyaha ee ONEAT ayaa sidii ugu habboonayd u gudatay hawsheeda sanadadaasi. wasaaradda miisaaniyadda ayaa fadhiga golaha wasiirada ee saaka hor keentay 2 mashruuc dhegelay oo u ogolaanaysa wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta jagooyin dhul ah. ugu horeyn mashruuca koobaad waxa uu dhigayaa 25 goobood oo la siinayo wasaaradda arrimaha islaamka oo ku yaal magaalo madaxda. jagooyinkan dhul waxaa loogu talagalay agaasimka awqaafta ee wasaaradda. mashruuca labaad waxa uu dhigayaa 4 jago dhul ah oo la siinayo isla wasaaradda waxaana loogu talagalay dhismaha masaajido lagu cibaadaysto. fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan oo ah kii 10aad ee sanadkan waxa uu meel mariyay oo kale mashruuc dhegelay oo wax ka bedelaysa buu yidhi dhegalaydii tirsigeedu ahaa 2010 eber 217 oo qeexaysa buu yidhi 200 ee shaqaalaha dowladda iyo waaxyaha gaarka looga goynayay waqfiga aaska iyo qodidda xabaalaha. howlaha dib u habeynta xabaalaha ee ay bilowday buu yidhi duwaanka waqfiga ee wasaaraddu ayaa kharashkooda kor u dhaafay intii loogu talagalay ee qorshaha uu ahaa. sidaas darteed waxa uu fadhigu saaka isku raacay oo lama huraan noqotay in la kordhiyo lacagtaasi oo laga dhigo 400 oo faran bishiiba halkii markii hore ay ahayd 200 oo faran. waxaana lacagtaasi loo kordhiyay ay wax ka qaban doontaa buu yidhi dib u habeynta iyo maaraynta wanaagsan ee xabaalaha iyada oo sida ugu wanaagsanna uga jawaabi doonta baahida cusub ee ku soo kordhay. fadhiga saaka ee golaha wasiirada waxa uu isku raacay oo kale buu yidhi mashruuc dhegelay oo ku lug leh dhismaha iyo magacaabidda xubnaha golaha maamul ee xafiiska halabuurka reer Djibouti ee dhowrista xuquuqda qoraalka. wasaaradda shaqada qaabilsan dib u habeynta maamulka ayaa fadhiga golaha wasiirada ee saaka hor keentay buu yidhi mashruuc dhegelay oo ku saabsan magacaabidda xubnaha golaha maamul ee wakaaladda qaran ee shaqada ee ANFU. mashruucan dhegelay waxa uu dhigayaa magacaabidda iyo xil u cusboonaysiinta xubnaha golaha maamul sida ay dhigayso dhegalaydani u taalla wakaaladaasi. fadhiga golaha wasiirada oo ah kii 10aad ee sanadkan amuuraha iyo go'aanada uu goluhu isku raacay waxaa ka mid ah magacaabinta iyo xil u xaqiijinta mas'uuliyiin kala duwan. mar kale iyo Khadar Cabdilaahi. fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan waxa uu isku raacay magacaabidda Maxamed Xuseen Roble la taliye farsamo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda, Sheekh Jimcaale Ibraahim Xuseen la taliye farsamo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta, Cumar Wihiib Caarif la taliye farsamo wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka, Sahal Cabdi Yuusuf
nasiib maydal suge iyo raxma cali xasan waxaa iyagana loo magacaabay la taliyayaal farsamo wasiirka tamarta. cali axmed yuusuf waxaa isaga loo magacaabay agaasimaha gaadiidka. faatuma cawaale cusmaan waxaa iyada loo magacaabay agaasimaha tirakoobka iyo daraasadda iyo arrimaha garsoorka ee wasaaradda gaadiidka. xumad gaba cabdulqaadir cumar cabdulqaadir waxaa loo magacaabay agaasimaha maaraynta mashaariicda. wahiib cali bulxo agaasimaha arrimaha shidaalka. saciida cumar cabdilaahi waxaa loo xaqiijiyey xilka agaasimaha wakaaladda jabuuti ee maaraynta tamarta. ugu dambeyn fadhiga golaha wasiirada waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda booqashadii shaqooyin ku tegay dalka Kuwait 7 iyo 8 bishan Abriil sanadkan 2015. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen Riyaad Yaasiin. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka gaadiidka iyo xuquuqal insaanka iyo ballaarinta maamulka ee dalka Yemen. madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxa diblomaasiyadda Yemen waxaa saaka ay ka wada hadleen xal u helidda xaaladda ka taagan dalka Yemen iyo sidii gurmad degdega loogu fidin lahaa dadka ku dhibaataysan dagaalada ka socda dalkaasi. tan iyo intii ka dambeysay markii dagaalada ka qarxeen dalka Yemen, jamhuuriyadda Jabuuti waxaa soo gaadhay qaxooti fara badan oo Yemeni ah, waxaana xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ku ballan qaaday u miciinida qaxootiga Yemen. jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Yemen waa laba wadan oo saaxiib iyo walaal intaba ah, waxaana ay wadaagaan soodin xagga badda ah. jamhuuriyadda Jabuuti ayaa noqonaysa goobta gargaarka loo mariyo dadka dhibaatadu ku haysatay ee dalka Yemen. kulanka saaka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti ee Sacuudi Carabiya Diya Al-Din Babal Magrama. wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen oo ertaydeeda u waramay waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti sida walaaltinimada ee ay u martigelisay qaxootiga Yemen. amuuraha aan ka wada hadalnay buu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ka mid ah gargaarka bini'aadantinimo iyo waliba xal u helidda colaadaha ka halowsan dalkaasi. imika buu yiri qaybo fara badan oo koonfurta dalka Yemen waxaa gacanta ku haya xuutiyiinta, arintaasi oo khalkhal gelisay dawladda dhexe ee Yemen. kadib markii uu dhamaaday kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Yemen, madaxa diblomaasiyadda Jabuuti ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaan waraysi la yeelanay, waxaana ugu horeyn uu ka warramay taageerada jamhuuriyadda Jabuuti ee la garab joogto xukuumadda sharciga ah ee uu madaxa ka yahay madaxweyne Cabdirabbi Mansuur Haadi ee dalka Yemen. wasiirku waxa uu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti maalinba maalinta ka dambaysa ay kusoo qulqulayaan tiro fara badan qaxooti Yemeni ah oo jamhuuriyadda Jabuuti ay martigelisay buu yiri. wasiirku waxa uu intaasi ku daray in jamhuuriyadda Jabuuti ay u sameysay xarumo martigelinaya qaxootiga ka soo barakacaya dalka Yemen. waxa kale oo uu sheegay in kulankaasi looga hadlay gargaar dadka ku dhibaataysan dalka Yemen ee u baahan gargaar bini'aadantinimo. kadib baaqi ay marwada koobaad ee dalka u jeedisay dadweynaha iyo shirkadaha ee ku saabsanaa gargaarka iyo istaageersiga qaxootiga Yemen, guriga hooyooyinka Jabuuti waxaa kusoo qulqulaya gargaarka u horeeya ee loogu talagalay qaxootiga Yemen. maanta ayaan baaqi marwada koowaad marwa Khadra Maxamuud Xayd looma kala hadhin, haddii ay noqoto in shirkadii weyn, haddii ay noqoto in maxay ahaydeen bulshadii rayidkii bulshada, dhammaan dadkii reer Jabuuti uma kala hadhin. marka waxaan leenahay Odebig waan ka gudoonay, ilaahay ha ka abaal mariyo in shaqaalaha reer Odebig. Igu ku hadlaya magaca shirkadda Jabuuti Telecom iyo magaca wasaaradda wargeysinta waxa farxadiya inaan ka soo jawaabno maanta baaqi ka soo yeedhay marwada koobaad ee dalkeena marwo Khadra Maxamuud Xayd. baaqa uu ku saabsanaa inaan gargaarno, taakulayno, gacan qabanno, soo dhaweyno walaalaheena Yemanta ka yimiday ay masiibadu ku habsatay. dalkeena waxaa lagu yaqaanaa terre d'asile et de paix. magaca inaan kor u qaadno gebi ahaanteena haddii ay yihiin shirkadaha intaasoo publiga bulshada rayidka si aan ragga walaalaheena gacanta u qaban lahayn
u soo dhaweyn lahayn yaa taalla meesha haddaan nahay Jib Telecom iyo wasaaradda isgaarsiinta jawaabtii u horeysay maahe ilaa iyo daadgureyntii waan ka qayb galnay wax kalena uu noo qorshaysan yaho sidii aan walaalihiina mas'uuliyadda ku habsatay wax ula sii qaban lahayn waan ku tali jirnay mahadnaq u celinayaa maxayda walaalkeen Djibouti dawladaha Djibouti Telecom iyo wasaaradda oo dhanba ayaan mahadnaq u celinayaa ilaahay ha ka abaal mariyo waxayna u soo deeqeen walaalahood jeeg dhan 12 malyan marka waan garan karaynaa inay gaadhayso aad bayna u mahadsan yihiin waxay ka mid tahay dadka baacimushtarka haweenka baacimushtarka ama entrepreneurada ah ee wadanka ayay ka mid tahay waxa u horeysa furiyo iyo u horeyso ka soo jawaabtay baaqi maxayda la jeediyay waxaana magaca marwada koobaad iyo magaca ururka haweenkaba waxaan maxayda kugu mahadnaqaynaa in gargaarkaas aad soo fidisay au nom de la première dame madame Khadra Mahmoud Haïd et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Ce matin, nous recevons un chèque des établissements Koubèche. Donc, nous remercions les établissements Koubèche pour ce geste fort louable qu'ils ont fait en l'honneur des réfugiés yéménites. Ce geste arrive à point nommé. Il arrive suite à l'appel lancé solennellement par la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour aider nos frères et sœurs réfugiés du Yémen. baaqii marwada koobaad ee dalka ayaa la dhaqaajiyay kadib geedi socodkii ay ku tageen xerada qaxootiga guddigii ka socday ururka qaran ee haweenka Djibouti maalintii Sabtidii aanu soo dhaafnay marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Mahmoud Haïd ayaa dhaqaajisay howlgal qiimeyn ah oo lagu fulinayo xerada qaxootiga ee Oboh oo ay degan yihiin ku dhawaad 320 qaxooti ah oo u dhashay dalka Yemen waftiga ka socday UNFD ayaa fursadaasi ka faa'iideystay oo kulamo la yeeshay maamulka deegaanka mas'uuliyiinta xerada qaxootiga iyo qaxootiga si guud ahaan loo qiimeeyo baahida degdeg ah ee ay u baahan yihiin kadib howlgalkaasi ay guddiga UNFD ay fuliyeen waxaa ka soo baxay warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga oo ay soo diyaariyeen guddiga ururka qaran ee haweenka Djibouti waxa kale ay sheegeen in kadib howlgalkaasi ay ku tageen xerada qaxootiga ee gobolka Wuuq ay ku soo arkeen in ay u badan yihiin dadka degan xeradaasi haween iyo caruur tallaabadaasi kadib ururka qaran ee haweenka Djibouti oo ay hormuud ka tahay marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Mahmoud Haïd ayaa bilaabay oo dhaqaajiyay baaq istaageersi ah oo lagu ururinayo lacagooyin lagu taageerayo dadka qaxootiga ee ku sugan gobolka Oboh khase yeeshee maaha markii u horeysay ururka qaran ee haweenka Djibouti ay fuliso howlgal noocan ah marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Mahmoud Haïd ayaa mar walba safka hore ugu jirta marka ay xaaladahan oo kale ay jiraan sida tallaabooyinka hore loo fuliyay ee laga fuliyay dalka ee lagu gargaarayay dadkii ay abaaruhu habsadeen muddo imika laga joogo 4 sanadood howlgalkaasi oo ay hogaaminayeen ururka qaran ee haweenka Djibouti ayaa suuro geliyay badbaadinta dhammaan dadkii ay abaaruhu ay saameeyeen oo lagu caawiyay baaqyo fara badan kadib markii baaqi ay dhaqaajisay marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha qaran ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Mahmoud Haïd tirada barakacayaasha iyo qaxootiga Yemen ee ka soo firxanaya colaadaha ka dilaacay dalkaasi ee soo gaadhay Jamhuuriyadda Djibouti ayaa kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa Jamhuuriyadda Djibouti waxaa saaka xilli hore soo gaadhay qaxooti Yemeniya iyo tiro kale oo dad ajaanib ah wararkayaga u dambeeyay ee naga soo gaaray marsada Djibouti waxaa kamid ah sida tan markab ka yimid dalka Cadan ayaa saacad hore soo gaaray dalka waxaana uu siday 195 qof oo ay u badan yihiin barakacyaal Hindi ah iyo Malaysian oo ay qaarkood ay yihiin arday sidoo kale waxaa kamid ahaa dadkaasi 30 Yemeni ah Thailand iyo Mareykan markabkaasi markii uu soo gaaray marsada Djibouti waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sarsare ee dalka iyo konsulka Jamhuuriyadda Indonesia u fadhiya Djibouti waxaa sidoo kale u joogay xoghayaha guddiga ammaanka u qaabilsan dalka Malaysia Datuk Mohamed iyo danjiraha Jamhuuriyadda Indonesia u fadhiya Djibouti ee rugtiisu ay tahay xarunta Addis Ababa ee dalka Ethiopia Imam Sontoso koox ka socota ee tidee oo goob joog u ahaa markii uu soo gaaray
markabkaasi marsada Jabuuti ayaa ka faa'iideystay fursadaasi oo waraysi la yeeshay danjiraha Jamhuuriyadda Indonesia u fadhiya Jabuuti Imam Sontoso iyo xoghayaha guddiga ammaanka u qaabilsan ee dalka Malaysia. danjiraha dalka Indonesia ayaa sheegay oo yiri waxaan joogaa Jamhuuriyadda Jabuuti muddo 10 cisho si aan dadkayga ka soo barakacaya dagaaladaasi ee ku soo galaya maraakiibta aan ugu celiyo dalkooga. waxaan u mahad celinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti sida wanaagsan ee ay isku garab taageen walaalahooda iyo sida quruxda badan leh ee ay gargaarka uga fidinayaan dadka ka soo barakacaya dagaaladaasi. waxaan rajaynayaa in mustaqbalka aan horumarin doono xiriirka laba geesoodka ee u Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Hindiya. xogayaha guddiga ammaanka u qaabilsan dalka Malaysia ayaa isaguna waraysigaasi ku sheegay in duulimaad aad u dheer ay ku yimaadeen dalka, waxaana uu sheegay in ay si fiican oo wanaagsan ay u soo dhaweeyeen xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaanan ku faraxsanahay in aanu imano Jabuuti, waxaanan u mahadnaqaynaa buu yidhi oon mahadnaq ballaaran u celinaynaa sida wanaagsan ee naloo soo dhaweeyey iyo sida agar la-aaneed ee ay gargaarka ugu fidiyeen barakacyaasha gaar ahaan dadkeena oo ka soo barakacay dalka Yemen oo haatan ay ka socdaan dagaalo culus. The foreign minister himself whom I met yesterday. horta waxay aad xaggan u ramirsiinayaan ugu mahadnaqayaan sidii dawladdeena u soo dhaweysay ugu hawl yaraysay ugu gacan qabatay u facilitaysay suutiyaga markabkii labaad ay soo qaataan dadkoogii aan caawino. aad bay ugu faraxsan yihiin dawladdeenu siday ugu soo dhaweyso siday ugu facilitaysay siday maxaa la yiraahdaa dawladihii kale adduunka xitaa ay ka fajiceen. donc iminka xaggan dhowr nationality baa la socda, Malaysiyaanki baa ku jira, Indonesiyaanki baa ku jira, Thailandee baa la socday, Yemenidii baa la socotay, Mareykan baa la socday, intaba. marka horta message-ka xaggan ka tabinaan iminka waa aad iyo aad remerciement dawladdeena iyo mas'uuliyiinteeda. marka wad mahadsantihiin, aad iyo aad bay leeyihiin. cashar weyn baa xaggan aan ka qaadanay sida solidariteeya iyo dhan walba wadan islaana oo walaalaheena oo saa noo gacan qabta. waad ku mahadsantihiin. waxaa maanta soo gaadhay garoonka caalamiga ee diyaaradaha laba diyaaradood oo u siday gargaar cunno ah dadka ku dhibaataysan dalka Yemen dhexdeeda, gaar ahaan magaalada Cadan oo dadka ku sugan ay aad ugu baahan yihiin gargaar cunno halkaasi oo dagaalada xoogani ay ka socdaan. waxaana ay ka duuleen garoonka caalamiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti laba diyaaradood oo u qaaday cunno dadka ku sugan Yemen. markii ay halkaasi soo gaadheen diyaaradahaasi waxa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo uu heliyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen Riyaad Yaasiin Cabdallah, wasiirka ballaarinta maamulka ee dalka Yemen iyo danjiraha Yemen ee Jabuuti Xamuud Axmed Al-Cudeeni iyo waliba danjiraha boqortooyada Sacuudi Carabiya Dia El-Din Bamakhrama. waxa aan waraysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen oo u mahadnaqay diyaaradaha ugu horeeyay ee Qatar ee soo gaarsiiyay gargaar cunno dadkaasi ku dhibaataysan dalkaasi. waxa kale oo mahadnaq ballaaran soo jeediyay xukuumadda Jabuuti iyo shacbiga reer Jabuuti sida hagar la'aaneed ee ay la garab joogaan dalka walaalahood ee ay ku habsadeen dagaaladu. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo aan isagana waraysi la yeelanay waxa uu xusay in Jabuuti iyo Yemen ay yihiin laba wadan oo walaalo ah. waxa kale oo intaasi ku daray in ay daris yihiin Jabuuti iyo Yemen oo ay wadaagaan bad mid ah. waxaa suuragal ah buu yiri in aan ku dadaalno sidii halkan loogu marin lahaa wixii gargaar ah ee ay na soo gaarsiiyaan wadamada caalamku. waxaa maanta na soo gaadhay diyaaradihii u horeeyay ee gargaar cunno, waxaana xukuumadda Jabuuti ay diyaar u tahay sidii ay gargaar xag walba leh ay ugu fidin lahayd dalka walaalaheena ee uu ka dilaacay dagaalada ba'an. hotelka Kempinski ee magaalada madaxda waxaa ka qabsoomay maanta shir heer gobol ah oo ay ka qayb galayaan shirkadaha warisgaarsiinta ee wadamada gobolka, waxaana uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. shirkaasi oo gudoominayay agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom Mudane Maxamed Casooy Buux. waxaa lagu talagalay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka shirkadaha gobolka. Naasir Cumar ayaa noo hayay faalada warkaasi.
shirkaasi oo socon doona ilaa iyo maalinta berri waxaa ku kulmay agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom mudane Maxamed Casoowe iyo wakiilo ka socday shirkadaha warisgaarsiinta ee dalalka Soomaaliya, dalka Kenya iyo Somaliland. waxaana kulankaasi ka qayb galay shirkadaha kale ah Samtel, Golis, China Telecom iyo qaar kale oo fara badan. bariga Afrika waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemay horumar dhinaca warisgaarsiinta waxaana door muhiim ah kaga jirta shirkadda Djibouti Telecom ee dalkeena. ujeedada kulankaasi ayaa sidii loo xoojin lahaa waxisdaafsiga iyo iskaashiga u dhaxeeya shirkadaha warisgaarsiinta ee dalalka degmada. intaasi kadib waxaan waraysi la yeelanay agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom mudane Maxamed Casoowe waxaana uu tilmaamay ujeedooyinkii kulankaasi waxaana uu yiri projectga xaliga jadiidka ee gobolka aan ugu talagalnay xaliga magaciisa la yiraahdo DER Djibouti Africa Regional Express waxay ka timidnaa magaca ingiriisku DER waa OZE donc inaan ku dagaalkii galnay wariyadeen balkaaleya waxaan baan haynaaye dib waxa u baahan tihiin wax ka jawaab baahin weeyaan si aan tayo u siino internetkii connectivity iyo regional integration kiiba xilliga waxaan u yeernay maanta macsuumay walaalaha Soomaaliyeed ka yimaadeen Soomaaliya, Puntland amba Somalilandba Kenya ka yimiday waxa kaloo shirkan la jooga China Telecom oo timiday shirkad kale Mareykan Bright Telecom la yiraahdo dhowr kaloo shirkadoodna way soo socdaan duul hayra maanta soo gaari doonaan wafiye kale xilliga waxa weeyaan sidee baan Britoolay nacam baahida meesha taala internetkii waa ka kobcaya loo baahan yahay broadbandka waliba broadband waxa la yiraahdo ODB oo loo baahan yahay maanta geeska Afrika iyo dunida wali hadda ay connectivity-gu yar iyadoo qaybka horyaalka qaran ee dugsiyada wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarada xirfadaha ayaa shalay dugsiga dhisidda ku qaban qaabisay ciyaarta kama dambaysta ee basketballka ee heerka dugsiyada dhexe iyo kuwa sare markale yana Cumar horyaalka si waxa uu tartamay 16 dugsi dhexe iyo 10 dugsi sare oo dhamaantood ku yaala magaalada madaxda wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cokiya ayaa dhaqaajiyay ciyaaraha u dhaxeeya dugsiyada waxbarashada bishii December ee sanadkii aan soo dhaafnay garoonka ciyaaraha ee dugsiga sare ee Lycée d'État waxaa ka soo qayb qaatay daawadayaal fara badan oo gaadhay 800 qof kuwaas oo kala taageersanaa dugsiyada soo gaadhay finaalka ciyaartaasi dugsiyada waxbarasho waxaana la qaban qaabiyay 4 finaal oo gees walba ay u kala ciyaareen inamo iyo gabdho dhinaca dugsiyada dhexe ee finaalka gabdhaha waxaa wada ciyaaray gabdhaha dugsiga dhexe ee Fikisawa oo ka bediyay gabdhaha dugsiga dhexe ee Gabood-aan dhinaca inamada waxaa wada ciyaaray dugsiga dhexe ee Xumbuli oo ka bediyay dugsiga dhexe ee Gaboodkaan xaga dugsiyada sare waxaa wada ciyaaray gabdhaha dugsiga sare ee Gabood oo ka bediyay gabdhaha dugsiga sare ee Lycée d'État dhinaca inamada dugsiga sare ee Lycée de Gabood ayaa ka bediyay inamada dugsiga sare ee liiga waa ciyaarta kolayga waxa sharafna inaan had maanta kuubabkii bixinayno oo sanadka oo dhan ciyaarihii soo socday si sharaf oo soo socday maanta farxadu ay muuqato dhalinyarada maanta oo wasaaraddu ay kuubabkiina ay bixinayso finaalkii basketka waxaan balyeynaa guddigii ka soo shaqeeyay sanadka dhan ee iskoolka qabaqaabiyay hawshaas ee si fiican u soo waday aad baan u maaragtay u mahadnaqaynaa oo u sharfeynaa caruurtana waxaan leenahay sanad wanaagsan baan leenahay iyagoo aad si nidaam oo qurux badan oo walaalnimo oo ay isbarteen waxa kale oo meesha ka dareennay in maaragtay wixii fashaxumadii oo dhan aynan muuqan sanadkan oon aad u aragnay xarunta maamul goboleedka Dikhil waxaa ka qabsoomay tababar xaka wadida baabuurta tababarkaasi oo ay soo qaban qaabisay wakaaladda horumarinta bulsho ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ADS waxaa ka qayb qaadanaya 60 dhalinyaro ah banay
labada urur waxaan kala qaadanay waa C iyo A marka taabal maanta furitaankii horeysay maanta taabaan ka dhignay fursadan maanta waxa ka faa'iideysanaya dhalinta maanta haysatay beeda haysatay oo mooyaay ku sii wataan haysan ayaan maanta u hirgelinay oo kaalinta baaluusa aan maanta aan xagga inaan uga qaadina insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo taasi oo dhalinyarta inay ka faa'iideystaan ilaa 30 dhalinyaro oo gobolka dakhil ku saabsan oo kamid ah gobol hayjiraha sida mulud oo kale asceel oo kale yoobiki oo kale aan ka soo qaadnay waxaan horta u mahad celinayna brifiye gobolka maxamed sheekh xasan cabdiraxmaan yunis aare waxaan u mahad celinaynaa wakaalada horumarka ardayda maxamed ibraahim geelle waxaan yahay gudoomiyaha ururka dhalinta ee Cokar marka magacooda la soo gaabiyo la yiraahdo Ajeko maanta halkan waxaan ku soo bandhigay munaasabadii aan ku furaynay xafladda barmiida aan ku tababaranay qof soddon ciyaala inaan qaadno oo maxay haday ka qayb galino barnaamijka maanta ay barmiida si ugu heli lahaayeen ayaan maanta halkan ku furnay taasi oo na hirgelisay ayna hayd fikradii horta madaxweynaha inuu sidii dhalinta inta loogu heli lahaa shaqo abuur amba sidee shaqo loogu heli lahaa ay hayd maanta fursadan waxaan helnay alxamdulillah madaxweynaheeniyo had iyo jeer dhalinta u taagan oo dhalinta had iyo jeer u yeelo ajandagiisa ugu horeeyo dhalintu tahay halkan waxaan la garab joogsatay wakaalada ADDS iyo Bank African Development oo halkan maaliyadii la garab joogsaday maanta itaal marka aan weynay wax kastaba nasiyay xukuumadii wadanka la garab joogto oo gobolkayaga maanta gobolkii midnimada aan maanta xafladan ku qabanay uu hormood ka yahay gudoomiyaha gobolka mudan maxamed sheekh xasan taasi allaha u naxariistay waxaa si naxariin lagu soo gaadhay geerida ku timid hooyo Faadimo Xasan Cali oo ku geeriyootay habeennimadii xalay magaalada madaxda marxuumadu waxay da'deedu ahayd 47 jir waxaana ay ka hadhay allaha u naxariistay suldaankii hore ee gobolka Tajoora Suldaan Xabiib Axmed Suldaan hooyo Faadimo Xasan Cali waxay ifka kaga tagtay 6 caruur ah agaasimaha golaha raadiyoga iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti agaasimka golaha raadiyoga iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti iyo dhammaan shaqaalaha RTD waxay tacsi tiirayeen la u dirayaan qoyska iyo qaraabada ay ka baxday hooyo Faadimo Xasan Cali waxaana eebba uga baryanaa in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wararka caalamka naga soo gaadhayna waxaa kamid ah dalka Nigeria maanta hal sano ayaa ka soo wareegtay maalintii dableyda Boko Haram afduubatay 276 gabdhood oo dugsi waxbarasho ku jiray magaalada madaxda Abuja ee dalkaasi maanta waxaa lagu balansanaa isku soo bax lagu muujinayo taageerada gabdhahaasi iyo in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo gabdhahaasi wararka qaar waxa ay sheegayaan in ay si qasab ah gabdhahaasi loo mehersaday qaarkood Naasir Cumar ayaa ka waramay dalka Nigeria waxaa maanta hal sano laga joogaa markii ururka Boko Haram uu ka afduubtay 200 oo gabdhood dugsi ku yaala magaalada Chibok ee waqooyiga dalka Nigeria waxaana sanadkii soo dhaafnay afduubka gabdhahaasi ka dhashay oo lala caalamiyo looga soo horjeedo afduubkaasi balse ilaa iyo haddan lama oga halka ay ku sugan yihiin gabdhahaasi ardayda ee gacanta ugu jira ururka Boko Haram hase yeeshee ururkaasi ayaa dhowr jeer sanadkii soo dhaafnay soo geliya barta internetka video muuqaal oo ay gabdhahaasi ku jiraan waxaana uu sheegay madaxa ururka Boko Haram Abubakar Shakaku in gabdhahaasi loo guuriyay rag ka tirsan ururkaasi warbixin ay soo saartay maanta hay'adda qaramada midoobay ee u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International waxa ay ku tilmaamtay in gabdhahaasi ay ku sugan yihiin saldhigyo ay leeyihiin ururka Boko Haram oo ku yaala dalalka Nigeria, Chad iyo Cameroon balse madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Muhammadu Buhari waxa uu ku ballan qaaday in xukuumadda uu madaxa ka noqon doono ay sameyn doonto wax walba oo suuragal gelinaya in gabdhahaasi lagu soo celiyo qoysaskooda daawadayaal waxaan intaa ku idil war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray habeenka caawa ay sidoo jireen igu akhrineen anigoo ah Muna Jibriil iyo Maxamed Cabdiraxmaan wararkan oo kale inta isku yimid doono waxaan igu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Djibouti Medical Center, un service médical de proximité, accessible à tous, avec des tarifs attractifs et son système d'abonnement qui donne droit à des consultations gratuites, des remises conséquentes sur les autres services. À Djibouti Medical Center, le docteur Mahmoud Youssouf et son staff vous serviront avec des soins de qualité et avec plaisir.